waxaa magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta lagu xusay xuska maalinta macalinka adduunka taas oo sanad walba waqtigan oo kala laga xuso dunida. Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kamid ah wadamada sida weyn maanta looga xusay ayaa waxa madal ballaaran oo lagu qabtay hoteelka Dhoolayare ee magaalada Hargeysa ka qayb galay xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale taas oo lagu maamuusay macallimiinta wadanka. munaasabadan oo ay soo agaasimeen ururka macallimiinta Soomaaliland ayaa waxa ugu horeyn halkaasi hadalka jeediyay gudoomiyaha ururka macallimiinta, gudoomiye ku-xigeenka, xogayaha, gudoomiyaha macallimiinta jaamacadaha iyo sidoo kale qaar ka mid ah macallimiintii ka soo qayb galay. dhammaantoodna waxa ay hambalyo iyo bogaadin u direen macallimiinta Soomaaliland. si aan u muujino macallimiinteena hadafka iyo ujeedada iyo waxqabadka badan ee dalka u leeyihiin u muujino iyaga carruurtooda iyo xaasaskooda iyo dadka daalka yihiinba waxaan ku salaaminaa salaanta islaamka maanta waxaan leenahay sarkiis ku gaara bashashii barwaaqo. macallinku runtii kaalin muhiim inoogu jira nusuus badanna runtii way ku soo aroortay xadiiskeeni tarmadu weerinaya ha muxuu ahaayay العلماء ورثة الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام علماء أما معلمكم يعني واحد حلقي ماركتي وحوها يا أنبياء معلمكم وهالبولها هي وضع أمة كستا وشلتا وحارك حرتها أمة داس حلقة معلم كذا كتاجتها يصير معلم كذا يولد قنطه يمشي يدكتو أي أمة هرمر كذا وجارسي سيهاي runtii marka macallinku waa producerka waa qofka soo saaraya xildhibaankiiba soo saaraya waa qofka soo saara waa qofka dhakhtarka soo saaraya ka siyaasiga soo saaraya waa ka macallinka soo saaraya waa iftiinka ummadda. runtii marka inaynu weyneyno oo aynu xusno waa arrin aad iyo aad u qiimo badan. waxaan leenahay hambalyo dhammaan macallimiinta xaasaskooda iyo carruurtooda iyo intay waxbareenba iyo anaga laftoodaba maalinta macallimiinta qadarin weyn ayayna wada haysaa. ururka macallimiinta amba ururka shaqaalaha guud ahaan ujeedadiisu waxa weeyaan inaynu midayno xuduudda shaqaalaha guud ahaan dalkeena Soomaaliland bahdu doonaha noqdo ma macallin ha noqdo amba dhakhtar ha noqdo amba injineer ha noqdo amba dhisme ha noqdo xirfad kasta oo qofku yahay shaqaale oo uu shaqeeyo loo shaqeeyo sidoo kale shaqaalaha sidooda u madax bannaan ee nan formalka ah iyaguna waa hor shaqaale. geesta kale waxaa halkaasi hadal ka jeediyay xildhibaan Fuaad Axmed Diiri oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland isagoona ku bogaadiyay macallimiinta Soomaaliland dadaalkooda iyo juhdiga ay galinayaan sidii ay u soo saari lahaayeen ummad wax bartay. waa maalin weyn oo aniga dareen gaara iyo xambaarsan waa maalintii macallinka waa macallinkii adduunka insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo ay ku soo dhigeen macallinkii ugu weynaa alayhi salaatu wasalaam waxaan filayaa inay risaaladii u dhisiddo oo hadday tahay maadi hadday tahay diiniba in waxa weeyaan jahliga ummadda la dagaalamaa وحوي في آخرنا وحي نوص عنيا أجر باي نوص عنيا معلم ما فع مقعد مولي هاي قف كستون بيسوي استاجه معلم باصوص صاري مركا مقعاس لو حوي